السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى السلام يا جودهان بعد كحرنا كنال كيجا لبعض. سود وهذا صاحبيال أنتو حنين سود دياري short conversation أما وضع شاكيسي ير لكن أدو حساب بدن وأنا إسكا بيجينا conversation ووابلو قيب طلباتنا وحن سوق عادن دونا إن شاء الله lecture about ماذا موضوع كسبسن هويدا لبدأس موضوع عين جعل استي إن إذا لو داغو صاحبيال كنال كا ما شاء الله تبارك الله سيفي عن بعد وتاجرتين waxaan idinku codsanayaa inaad casharka la gareysan kanaalka haddaadan subscribe gareynina please hadda subscribe garee insha Allah casharkan aynu hor ugu dagelinaa short conversation wada sheekaysi gaaban laba qof baa ku wada sheekaysanaya qof koobaad wuxuu leeyahay what do you mind maxaad ka qabtaa if haddii I ask you an ku weydiiyo normal question su'aal caadi ah relating la xiriirta about you adiga kula xiriirta b baa wuxuu leeyahay It seems to me waxay ila muuqataa very good idea fikrad aad u wanaagsan okay su'aashii weydiinaya what must you do maxaa waajib kugu ah inaad samayso eraga must waa waajib what must you do maxaa waajib kugu ah inaad samayso if you want haddii aad doonayso to develop inaad horumariso your English language luqadaada Ingiriiska biba wuxuu leeyahay I must make waa inaan sameeyaa more effort dadaal badan and iyo constant reading akhris joogto ah constant joogto ah practice na dabcan waa garanaynaa waa practice-kii caadiga ahaa and study aanan bartaa buu leeyahay si joogto ah that is taasi waa the best way habka ugu fiican which kaasoo I can improve and ku horumarin karo my knowledge aqoontayda of English language luqadda Ingiriiska baa su'aal kale weydiinaya wuxuu leeyahay as you know sida aad og tahay we make waxaan sameynaa conversation wada sheekaysiga every day maalin waliba sida darteed can you tell me ma ii sheegi kartaa the advantages faa'iidooyinka we get aynu ka helno the conversation wada sheekaysiga biba wuxuu leeyahay the conversation wada sheekaysiga we make aynu samayno every day maalin waliba we can find waxaynu ka heli karnaa many advantages faa'iidooyin fara badan which taasoo I can't summarize here which taasoo I can't summarize aanan ku soo koobi karin summarize waa soo koobid summarize aanan ku soo koobi karin here halkan but laakiin if I give you haddii aan ku siiyo some information xoogaa warbixin ah we can get oo aanu ka heli karno haddaan ku siiyo buu leeyahay first ugu horreyn we test waxaynu tijaabinaa ereyga test waa tijaabin our ability of speaking awoodayna ku hadal ability waa awoodda second tan labaadna we exchange waxaynu isdhaafsanaa our ideas fikradahayna jikada si wada jir ah so you must make waa inaad samaysaa practice-ka inside gudaha or ama outside banaanka of the school iskuulka khudbadan yar ayaan raacsiinayaa ku saabsan hooyada Allah xafiday hooyo walba oo muslim ah khaasatan kuwa Soomaaliyeed lecture about mother waa lecture about mother khudbad ku saabsan hooyada wiil baa ka hadlay hooyadii buu ka sheekeynaya wuxuu leeyahay My mother, hooyaday, is the most important person in my life. Is the most important waa qofka ugu muhiimsan person waa shakhsiga ugu muhiimsan in my life noloshayda. She supports and loves me. She supports way i taageertaa and loves me wayna i jeceshahay in every condition xaalad walba condition waa xaalad waayahay My mother, hooyaday, has the greatest impact waxa ay ku leedahay the greatest impact saamaynta ugu weyn in my life ee noloshayda my mother hooyaday and I iyo anigu are close friends waxaynu nahay saaxiibo isu dhow close friends waa saaxiibo aad isugu dhow and I usually go waxaanan had iyo jeer u aadaa to her iyada for advice waano ama talo she has taught me waxay i bartay many things waxyaabo fara badan about life nolosha ku saabsan iyada ayaa barta hooyaday buu leeyahay and she also
waxay sidoo kale helps me iga caawisaa become inaan noqdo a good and obedient person shakhsi adeeca wanaagsanna shakhsi wax adeeca yani dadka maqla macallimiintiisa dadkiisa adeeco obedient haddii si kale u dhahnana shakhsi hoggaansama okay she is intelligent iyadoo waa caaqil and she knows waxa ayna garanaysaa ama taqaanaa the solution xalka of any problems ee dhibaatooyin kasta my mother hooyaday brought me up waxay ii soo barbaarisay eragan brought me up yani markan erga brought waa keenid waa past of bring so brought keenid waaye upna waa kor marka kor qofku ku geey yani uu soo barbaariso ma so my mother hooyaday brought me up waxay ii soo barbaarisay nicely si fiican si wacan and she is always with me hadii jarna way ila jirtaa she doesn't put ma dhigto any pressure wax cadaadisa on me aniga wax cadaadisa ima dul dhigto ama ima saarto okay but lakin she always tells me waxay hadii jar ii sheegtaa the right path wadada saxda ah path waa sax of achieving ee aan ku gaarayo my goals ahdaftayda finally ugu dambayn my mother hooyaday has told me waxay i bartay many good things waxyaabo badan oo wanaagsan and I will always be grateful and I will always aniguna had year be grateful waan uga mahad celin doonaa to her iyada since maadaama I can't reply aanan gudi karin erga I can't reply waa inaad wax ka jawaabto so abaalkeedii inaad ka jawaabto aad gudid her kindness naxariisteeda so cashirkan aad iyo aad u xiiso badan yahay baan rajeynayaa insha Allah muuqaalku inuu aad u sii dheeraado ma doonayo so marka aad buu u fudud yahay insha Allah waan soo badan doonaa haddii abwan oo karaale noqdo kanaalka waan la socdaa ayaamahan waxba soo ma aanan gelin kanaalka weyn ee akademiyada way arag iyo barnaamijyo kale cusub oo aanu soo kordhinay ayaamihii la soo dhaafay xoogga saaraynay balse waxaan rajeynaynaa wixii hadda ka dambeeya inaan labada kanaal casharo wada sheekaysiya aad u xiiso badan vocabulary aad u xiiso badan inaan halkan soo gelin doono hadduu abwan u yiraahdo waliba waxaan kaloo doonayaa barnaamijyo cusub inaan qaybtan ku soo kordhiyo kanaalkan oo wixii English ah iyo kaas aan u daayo kana insha Allah barnaamijyo ayaan qorsheynayaa haddii ii suuro galaan insha Allah waan idin soo wadaagi doonaa marka si barnaamijyadaas aad ugu xidhnaato oo aad u noqoto qofka ugu horeeya ee ka faa'iideysta waxaan ku ogeysiinayaa inaad kanaalka aad subscribe gareysato gambaleelkana aad furato maxaa yeelay wuxuu ka saacidayaa update kasta oo markii aan soo geliyo waxaad noqonaysaa qofka ugu horeeya ee daawada insha Allah barnaamijkan mid lamida inta ku kulmi doono waxaan kaga tagaa sidaas iyo amaana Allah